weligaa ma isweydiisay sida ay suurtagal ku noqon karto in waddan dhan la dumiyo iyada oo aan hal rasaas la ridin sidee lacagtan warqadda ka samaysan uga halis badan tahay taangii dagaal iyo kumanaan ciidan ah ku soo dhowow daawade muuqaal aynu ku gorfayn doonno sida cunaqabataynada dhaqaale ay u noqdeen hubka cusub ee uu Maraykanku dalalka u adeegsado waa dagaal aan rasaas la ridin balse dhiiggiisu uu qulqulo gudaha cisbitaalada suuqyada iyo meelaha biyaha laga cabo waa dagaal saboolnimo iyo cudur xambaarsan oo aan lahayn ciidan la iska difaaco iyo sirdoon la iska ilaaliyo waa dagaal cinwaankiisu yahay ama Maraykanka ayaad la jirtaa oo waxaan diidno waa diidaysaa ama cunaha ayaan kugu dhegaynaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Wabari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta Maraykanku waa dalka ugu badan ee adeegsada waxa loo yaqaan cunaqabataynada dhaqaale laakiin fikradda in loo adeegsado dhaqaalaha hub ahaan waxay u noqonaysaa ninkan oo la yiraahdo Napoleon Bonaparte sanadkii 1806 Napoleon ayaa soo saaray sharci la oran jiray nidaamkii qaaradaha ama Continental System kaasoo ka mamnuucayay dhammaan wadamada Yurub ee uu xukumayay ama gaashaanbuurta la ahaa inay ganacsi la sameeyaan boqortooyada Ingiriiska taasi oo macnaheedu ahaa inaysan waxba ka iibsan karin una dhoofin karin Ingiriiska halka Maraykanku uu bilaabay inuu dhaqaalaha hub ahaan u adeegsado wixii ka dambeeyay sanadkii 1917 Maraykanka oo kaliya maahan cidda isticmaasha cunaqabataynada balse dalalka awoodda leh oo dhan sida Ruushka iyo Shiinaha ayaa iyaguna adeegsada cunaqabataynada dhaqaale haddaba maxaa Maraykanka ka dhigay kan ugu awoodda badan marka laga hadlayo cunaqabataynada jawaabtu waa mid kooban waana dollarka aan ku sharaxo daawade dollarka Maraykanku waa halbowlaha nidaamka maaliyadeed ee maanta ka jira caalamka waa lacagta ugu weyn ee kaydka caalamiga ah oo micnaheedu yahay in dalal badan oo dunida ka tirsan ay ku ganacsadaan ku deyn qaataan kuna bixiyaan lacagtooda dollar ahaan xitaa haddii Maraykanku aanu ku lug lahayn heshiiskaas Maraykanku waa dalka daabaca dollarka wuxuuna gacanta ku haystaa nidaamyada bangiyada adduunka iyo shabakadda lacagaha la isku dhaafsado ee loo yaqaan SWIFT haddii Maraykanku uu rabo inuu cunaqabateeyo waddan wuxuu si fudud uga mamnuuci karaa adeegsiga dollarkiisa iyo ka qaybgalka nidaamyadan bangi ee isku xiran gundhigana uu u yahay SWIFT taasi oo ka dhigaysa waddankaas mid curyaamo dhaqaale ahaan tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad wax iibsato ama iska iibiso laakiin laguma ogola dal ahaan inaad lacagta ku bixiso dollar haddaba dalkee ganacsi kula gareeya way adag tahay arrinta labaad Maraykanku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay laba nidaam oo lacagaha la isku dhaafsado oo la kala yiraahdo SWIFT oo aynu horey u soo sheegnay iyo nidaamka CHIPS labada nidaam ayaa muhiim u ah wareejinta lacagaha gaar ahaan kuwa dollarka ah haddaba haddii Maraykanku yiraahdo bangigan ama waddankan looma ogolaan karo inuu adeegsado SWIFT ama CHIPS bangigaas ama dalkaas si rasmi ah ayaa loo go'doominayaa looma diri karo wax lacag ah isaguna lacag ma diri karo wuxuu la mid noqonayaa qof lacag haysta balse ku jira xabsi haddaba waxaa dhici karta inaad isweydiinaysid cunaqabataynadan miyaysan Maraykanka dhibaato ku keenayn oo sumcadiisa lacageed aysan dhulka la gelayn buugga la yiraahdo The Art of Sanctions ee uu qoray Richard Neville ayuu ku sharaxay in cunaqabataynadan Maraykanka inkastoo ay saameyn weyn yeelato dalalka ay u adeegsadaanna ay dharbaaxo dhaqaale ku noqoto haddana sidoo kale dhibaato ayay ku tahay nidaamka dhaqaale ee Maraykanka laftigiisa haddaba sidee dhaqaalaha Maraykanka saameyn ugu yeelataa shirkadaha Maraykanku waxay waayaan suuqyo waaweyn taasi oo sababtay in ay lumiyaan bilaayin dollar sanad kasta boqolaal kun oo shaqooyin ah ayaa meesha ka baxa daraasad laga helay xafiiska falanqaynta dhaqaalaha Maraykanka ee loo soo gaabiyo BIA ayaa sheegtay in cunaqabataynadii Maraykanku uu soo rogay sanadkii 1995 oo kaliya ay sababeen in Maraykanka laga waayo ku dhawaad 200,000 oo shaqo oo horey u jiray sidoo kale maamulka Maraykanku wuxuu ku khasban yahay inuu lacag badan iyo shaqaale geliyo kormeeridda shirkadaha si looga hortago jabinta cunaqabataynadaas arrinta ugu khatarta badan ee uu buuggan xusay ayaa ah in xulafada Maraykanka laftigiisu ay jabiyaan cunaqabataynadan taasoo dhaawacda kalsoonida
iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay saaxiibadiis. Aynu isla eegno tusaale dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay kadib markii madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyarka Iiraan sanadkii 2018. Xilligaas Trump ayaa dib u saaray cunaqabateenno adag oo dhammaystiran dalka Iiraan, laakiin dalalka Yurub, gaar ahaan Faransiiska, Jarmalka iyo boqortooyadii Ingiriiska ayaa u arkay in Iiraan ay si daacad ah u fulinaysay heshiiskan, halka Trump ay u xisaabiyeen inuu degdegay oo cunaqabateennadan aysan cadaalad ku dhisnayn. Sidaasi awgeed, Yurub waxay go'aansatay inay jebiso cunaqabateynta Maraykanka iyada oo aan wax ogolaanshiyo ah ka sugin. Waxay abuureen nidaamka la yiraahdo INSTEX si ay ganacsi ula sameeyaan Iiraan iyaga oo aan adeegsanayn dollarka Maraykanka ama nidaamyadii bangi ee Maraykanka. Tani waxay ahayd ceeb weyn oo ku dhacday Maraykanka, waayo waxay muujisay in xulafadiisii ugu dhowaa aysan aaminsanayn siyaasaddiisa. Waxaa ka sii daran, tallaabadaas waxay dhiirigelisay dalal badan oo dunida ah inay bilaabaan raadinta habab kale oo ka madax bannaan dollarka, taasi oo si tartiib ah u wiiqaysa awoodda uu leeyahay dollarku mustaqbalka dhow. Tusaale kale, Ruushka, kadib markii Maraykanku uu saaray cunaqabateenno taariikhi ah oo salka ku hayay duulaankii uu ku qaaday Ukraine, Ruushku wuxuu u arkay cunaqabateennadan inaysan ahayn dhibaato balse ay tahay fursad. Wuxuu ganacsigiisa u wareejiyey dhanka Shiinaha iyo Hindiya, wuxuuna bilaabay inuu shidaalkiisa ku iibiyo qiimo dhimis aad u saraysa iyadoo lagu bedelanayo ama lagu iibinayo lacago aan ahayn dollar sida yuwaanka Shiinaha iyo rubalka Ruushka. Sidoo kale wuxuu horumariyey nidaam kale oo la tartama nidaamkii SWIFT oo la yiraahdo SPFS. Ruushku wuxuu dhaqaale ahaan bilaabay inuu isku filnaado, wuxuu kordhiyey wax soo saarkiisii gudaha, wuxuuna hoos u dhigay ku tiirsanaanta badeecadaha reer galbeedka. Tani waxay sababtay in Ruushku uu si buuxda ugu jihaysto bariga, gaar ahaan Shiinaha. Shiinaha laftigiisa, in kasta oo uu wajahayo cunaqabateenno dhaqaale oo joogto ah, haddana wuxuu horumariyey oo uu samaystay habab uu uga fogaado saamaynta tooska ah ee Maraykanka, wuxuuna maalgeliyey nidaamyo maaliyadeed oo isaga u gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad isdhahdid, dalalkan waa dalal quwado waaweyn ah, laakiin dalalka saboolka ah iyaga maxaa miciin u ah marka cunaqabateyn la saaro? Marka hore, cunaqabateennadu waxay u qaybsamaan laba qaybood: cunaqabateenno dhammaystiran oo dalkaas wax walba laga cunaqabateeyo, wuxuuna ilaa hadda Maraykanku saaray dhowr dal oo kala ah Kuuba, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka, Suuriya oo hadda laga qaaday, iyo qaybo ka mida Ukraine. Qaybta labaad waa cunaqabateyn gaar ah oo dalkaas waxyaabaha qaar laga cunaqabateeyo. Ilaa haddana waxay ku soo rogeen ilaa 20 dal oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Bakistaan, Lubnaan, Liibiya, Ciraaq, Suudaan iyo Turkiga. Xitaa dalal reer galbeed ah sida Jarmalka iyo Faransiiska ayaa marar kala duwan wajahay cunaqabateennada noocan ah oo uu Maraykanku saaray. Aynu eegno dalalka muslimiinta ah oo aynu tusaale u soo qaadanno dalka Bakistaan. Bakistaan waxaa la saaray ku dhowaad 9 cunaqabateynood oo waaweyn laga bilaabo sanadkii 1965 ilaa maanta. Sababta ayaa salka ku haysay barnaamijkeedii nukliyarka iyo tijaabooyinkii ay samaynaysay. Maraykanka ayaa cunaqabateennadan u saaray iyagoo raba in awoodaha qaar, gaar ahaan nukliyarka, aysan yeelan dalalka kale si uu weligiis u ahaado midka keliya ee haysta awoodaha ciidan ee ugu waaweyn. Haddaba su'aasha muhiimka ah waxay tahay, Bakistaan ma si weyn ayay u saamaysay cunaqabateynta dhaqaale ee Maraykanka? Jawaabtu waa maya, oo dhaawac weyn ma soo gaarin. Sababtuna waxay ahayd in waddamo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Iiraan ay xoojiyeen xiriirkii dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay la lahaayeen Bakistaan, iyagoo u arkayey in Bakistaan ay u baahan tahay taageero iyo garab istaag si ay uga soo kabato cadaadiska Maraykanka. Waxaa xusid mudan in Maraykanku, isagoo aan si toos ah u qastin, inuu haddana sabab u noqday in ay midoobaan 3 dal. Waxaana tusaale cad u ah sida Bakistaan ay u garab istaagtay Iiraan intii lagu jiray weeraradii military ee ay Israa'iil iyo Maraykanku ku qaadeen dalkan. Isla waqtigaas, cunaqabateennadii Maraykanku maysan hor istaagin horumarka Bakistaan ay ka samaysay samaysashada hubkeedii nukliyarka.
aynu u soo wareegno Iiraan ka hor cunaqabatayntii Trump ee 2018. Iiraan waxay dhoofin jirtay in ka badan 2 milyan iyo bar foosto oo shidaal ah maalintii, laakiin kadib cunaqabataynadaas dhoofkeedu wuxuu hoos ugu dhacay wax ka yar 500,000 oo foosto maalintii. Arrintani waxay sababtay in dowladda Iiraan ay wajahdo miisaaniyad xumo weyn, taasi oo ku qasabtay inay bilowdo daabicidda lacag cusub. Natiijada ayaa noqotay sicir barar gaaraya ilaa 40% qiimaha lacagta Iiraan oo hoos u dhacday in ka badan 70%, iyo shirkado caan ah oo Yurub iyo Aasiya ka soo jeeda sida Total, Mercedes, Peugeot iyo kuwo la mid ah oo suuqa Iiraan ka baxay. Laakiin mahalkaas ayuu khasaaruhu ku ekaaday. Jawaabtu waa maya. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times sanadkii 2024 ayuu ku sheegay in dhakhaatiirta Iiraan ay la kulmeen dhibaatooyin waaweyn oo ku saabsan helitaanka daawooyin muhiim ah, gaar ahaan kuwa lagu daaweeyo cudurrada halista ah sida kansarka. Sidoo kale cisbitaallo gaar loo leeyahay oo ay maalgelinayeen shirkado ajnabi ah ayaa xirmay. Arrintan ayaa keentay geerida in ka badan 1,100 qof oo bukaan ah. Warbixintu waxay si toos ah u xustay in cunaqabatayntu ay noqotay hub dilaa ah oo si arxan daran u burburiyey dhaqaalaha iyo nolosha shacabka Iiraan. Aynu u sii gudubno dalkii saddexaad ee Islaam ah ee ay galaafteen cunaqabataynada Maraykanka oo ah dalka Ciraaq. Ka hor 1990, nidaamka caafimaad ee Ciraaq wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu tayada sareeya gobolka Bariga Dhexe. Maantase wuxuu ka mid yahay kuwa ugu liita, wuxuuna la daala dhacayaa dalkan daawo la'aan iyo in qalabka caafimaadku uu aad u kooban yahay. Cunaqabatayntii 1990 waxay Ciraaq ka mamnuucday inay soo dhoofsato kiimikooyin muhiim u ahaa daaweynta biyaha sida kaloriinta. Natiijada ka dhalatay ayaa ahayd shabakadii biyaha ee dalkan oo burburtay iyo faafitaanka cudurro halis ah sida cudurka daacuunka. Wax soo saarka guud ee dalka ayaa hoos uga dhacay $44 bilyan oo uu ahaa sanadkii 1990, isaga oo noqday wax ka yar $10 bilyan oo sanadkii 1995. Sidoo kale dalkan ayaa galay sicir barar ba'an. Warbixin ay soo saartay UNICEF sanadkii 1990 ayay ku sheegtay in cunaqabatayntii Maraykanka ee Ciraaq ay sababtay geerida ku dhowaad 500,000 oo carruur ah oo aan gaarin 5 sano. 500,000 carruur ah ayaa la ildaran nafaqo xumo, daawo la'aan iyo cudurro ka dhashay biyaha wasakhaysan ee dalkan. Daraasad kale oo lagu daabacay wargeyska Lancet ayaa sheegtay in tirada dhimashada guud ee dhammaan ay gaarayso ilaa 1,200,000 oo qof, waxayna dadkan dhinteen iyadoo Maraykanku uusan u dirin dalkan xitaa hal askari. oo waa intaan si rasmi ah uusan u bilaaban dagaalkii Ciraaq oo markii hore awooddii ciidan iyo dhaqaale waxay ku sii daciifiyeen cunaqabataynadan. Maanta Ciraaq ma lahan awood buuxda oo ay ku maamusho dakhligeeda shidaalka. Sababta ayaana ah in dakhliga shidaalka Ciraaq lagu shubo akoonnadii hore ee dawladda Ciraaq iyo sanduuqa horumarinta Ciraaq ee loo soo gaabiyo DFI oo yaala bangiga dhexe ee Maraykanka. Dawladda Ciraaq ma isticmaali karto $1 oo ka mid ah lacagahaas iyadoon ogolaanshiyo rasmi ah ka helin Maraykanka. Xitaa sanadkii 2022 Maraykanku wuxuu si lama filaan ah u hakiyey wareejinta lacagta Ciraaq, waxaana sabab looga dhigay xeerar cusub oo ka soo baxay bangiga dhexe ee Maraykanka. Macnaheedu waa in lacagta shidaalka Ciraaq ka soo xiroota laga maamulo Washington oo aysan wax shaqo ah ku lahayn Baghdad. Taasina waa tusaale cad oo muujinaya in cunaqabataynta Maraykanku ay keento burbur bulsho iyo dhaqaale oo baahsan. Buugga la yiraahdo Treasury's War ee uu qoray Ikhwan Zarate oo ahaa ku-xigeenkii wasiirka maaliyadda Maraykanka ee arrimaha argagixisada iyo sirdoonka maaliyadeed kadib weerarkii 11 Sebtembar 2001 wuxuu si cad u faahfaahinayaa sida Maraykanku uu kooxda Xisbullah ee ka dhisan Lubnaan wiiqideeda ugu adeegsaday cudud maaliyadeed. Ikhwan ayaa ku qoray buuggiisan tan iyo dagaalkii Julaay 2006 ee dhex maray Xisbullah iyo Israa'iil. Washington waxay gaartay go'aan istiraatiiji ah oo aan si rasmi ah loo shaacin. Waxay garowsadeen inaysan Xisbullah fagaarayaasha dagaalka oo keliya
uga adkaan karin, balse haddii ay ka soo maraan dhanka lacagta ay ka adkaan karaan. Sida uu sheegay ninkan, saraakiisha Maraykanka ayaa marka ay qof ka shakiyaan inuu xiriir la leeyahay ururkan, waxay si toos ah ugu tegi jireen bangiyada Lubnaan iyagoo wata warqad micnaheedu yahay haddii aad sii wadaan la macaamilidda qofkan waxaad lumin doontaan fursadda aad kula macaamilaysaan nidaamka maaliyadeed ee Maraykanka. Ikhwaan wuxuu intaas ku daray, bangiyadii Lubnaan waxay noqdeen aalad ka tirsan siyaasadda Maraykanka, waxay ka cabsadeen go'doomin dhaqaale in ay la kulmayaan, waxayna qaateen amaradeenna aynu ka tagno Lubnaan oo aan u gudubno dalka Suudaan. Cunaqabataynta Maraykanka ee Suudaan waxay bilaabatay sanadkii 1997 iyadoo Maraykanku ku eedeeyey in dowladda Suudaan ay taageerto argagixisada, gaar ahaan ururo ay ka mid yihiin Al-Qaacida. Maraykanka ayaa bilaabay inuu xayiro dhammaan xiriiradii ganacsi iyo dhaqaale ee ay dalalku la lahaayeen Suudaan, wuxuuna shirkadaha Maraykanka ka mamnuucay in ay Suudaan wax u iibiyaan ama ka iibsadaan, taasoo dhaqaale ahaan dalkan si ba'an u curyaamisay. Sanadkii 2007 intii lagu guda jiray xasuuqii Darfur, madaxweyne George W. Bush ayaa kordhiyey cunaqabataynada isagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday shirkado ay leeyihiin ganacsato reer Suudaan ah. Wuxuu ku eedeeyey dowladda Suudaan inay si toos ah uga qayb qaadatay dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada. Natiijadii ka dhalatay tallaabooyinkan ayaa ahayd inuu burburay nidaamkii caafimaad ee dalka, sidoo kale waxay sababtay yaraanta daawooyinka iyo hoos u dhaca maalgelinta, waxayna si dadban ugu keentay dalkan kumanaan kun oo dhimasho ah, gaar ahaan carruurta iyo bukaanada aan heli karin daawooyinkii ay u baahnaayeen. Kadib dagaalkii sokeeye ee qarxay sanadkii 2023 ee u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kuwa taageerada degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF, Maraykanku wuxuu dib u soo celiyey cunaqabatayntii isagoo bartilmaameedsaday hogaamiyayaasha labada dhinac. Sababtuna waxay ahayd dilalka iyo xasuuqa ka dhacay Darfur, Khartoum iyo magaalooyinka kale. Haddaba guntii iyo gunaanadkii muuqaalkeenna, cunaqabataynta dhaqaale ee Maraykanku waa mid si xoogan u beegsanaysa shacab aan waxba galabsan. Waxaa la bartilmaameedsadaa nidaamyada caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo ilaha nolosha asaasiga ah. In kasta oo lagu sababeeyo arrimo la xiriira amniga ama cadaalad darrada ay dowladuhu sameeyaan, haddana shacabku waa kuwa ugu badan ee ay waxyeeladu gaarto. Waa dagaal aan rasaas la ridin, balse dhiiggiisu wuxuu qulqulaa gudaha cisbitaallada, suuqyada iyo meelaha biyaha laga cabo. Waa dagaal saboolnimo iyo cudur xambaarsan oo aan lahayn ciidan la iska difaaco iyo sirdoon la iska ilaaliyo. Waa dagaal cinwaankiisu yahay ama Maraykanka ayaad la jirtaa oo waxaan diidno waa diidaysaa, ama cunaha ayaan kugu dhegaynaa.